xaflad lagu guddoonsiinayay shahaadooyin caruur Soomaaliyeed ayaa waxa ay ka dhacday magaalada London. Xafladan oo ay soo abaabuleen Help Somali Foundation ayaa ahaa xaflad lagu doonayo in caruurta Soomaaliyeed lagu dhiirigeliyo waxbarashada. xafladan oo ay ka dhacday galbeedka magaalada London ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaanada wadankan Ingiriiska qaar kamid ah iyo duqa xaafadda Brent. haddaba caruurta Soomaaliyeed hadiyo goor waxa la maqlaa xumaantooda balse dhalinyarada aanu goobtaasi ku wareysanay iyo maamulka Help Somali Foundation Mr. Habi ayaa waxay inoo sheegeen inay doonayaan inay soo bandhigaan wanaaga ay caruurta Soomaaliyeed ka muujiyaan iskooladooda iyo sida ay waxbarashadooda u sareyso. caruurta ka qayb qaadatay xafladan ayaa qaarkood waxa goobtaasi ay ku soo bandhigeen ruwaayadooyin ay ku dhiirigelinayaan caruurta Soomaaliyeed. sidoo kale waxaanu wareysi lana yeelanay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo caruurta Soomaaliyeed ee lagu guddoonsiiyay shahaadooyinkooda. waxaa la yiraahdaa Harbi Faarax oo ah directorka Help Somali Foundation oo ah organization charity oo ka shaqeeya xaafadan Brand. marka waxaa aad ii farxad geliyay waalidiinta tirada badan iyo ilmahoodii oo rag iyo dumar isugu jira oo ka soo qayb galay iyo waliba maaragtay MPyadeeni iyo mayorkeeni iyo directorkii oo Children and Families Departmentiga oo kulli oo supportkana siiyo oo nagala soo qayb galay xafladan. magaca miski koon xafladan maanta sida u dhacday? It went very well. It was organized by all of us and Harbi as well. waxaa loogu talagalay ilmaha Soomaaliyeed achievementkooda in la fahmo iyo hooyooyinka inay arkaan iyo aabooyinka ilmahooda waxay sameynayaan communityga. organizationka Help Somali Foundation bilaabeen insha Allah waxaan rabnaa every year inaan sameyno achievementka oo dadka yar in outline gareyno waaye. Assalaamu alaykum. magaca Yaasiin Cabdi Maxamed Yaasiin Bulsho. Yaasiin maanta xafladan ka soo qayb gashay lagu dhiirigelinayo caruurta Soomaaliyeed sidee bay kula ahayd? bismillaahir rahmaanir rahiim. marka ugu horeyso dadkii soo abaabulay oo barnaamijkan soo dhigay ugu horeyso Help Somali Foundation ama aan Harbi iyo groupkiisa horta aad baan horta ugu mahadcelinaa Ilaahay ka sokow. waxaan kaloo ugu mahadcelinayaa qolada TV-ga oo Nabil hogaaminayo oo iyadana sida Universal TV-ga oo sida sharafta loo soo qayb galo dhiirigelinta qaybteeda ka soo qaatay. waxay aniga maanta ila tahay shucuurteeda shucuur aad u sareyso maxay la caruur aan dhala qaar kamid ah waa la siiyay anigoo naf ahaanteyda odayga xaafad aan waa la siiyay. marka waxaan taas aan leeyahay dhiirigelin waaye. waxaa laga sameynayay waxa waaye ilmaha Soomaali you have to actually like recognize the achievement and what they've done because there's so much like negative publicity going on about Somali teenagers and we need to do more to actually recognize the achievement that they've done and actually award them so they actually get recognized for what they've done. Barash wanaagsan. Assalamu alaikum. My name's Hanad Abdul Qadir Mahmoud. You know, I've been here for 20 years in Ingiriiska and geedkan waxaan u sameynay so the parents in fahman that they can get involved with the homework, get involved with the classes, get involved with all the other things or school so that was the play for today. That's what the achievement is about. As a part of the Help Somali Foundation, I just work alongside with my co-workers, just helping other Somali youths, just keep integrating with each other and stuff and just support the Somali community. We're all about just making weaknesses and into opportunities and achievements. Nabil Hassan Noor, Television Universal, caasimadda wadanka Ingiriiska ee magaalada London.